السلام عليكم ورحمة الله خيارتي أديت باني سلام يا ما أنت فيديو كان وحى يقول لي كاستمر أيان للجوجي شركات أيان ويب سايت وسميني مركا قبل مش جوجتي أيا وحى يقول تري منيوغا ويب سايت كستو حولي هاي لوجو يمني مركا منيوغن أيا يقول تري دور كلو مني كبيري oo sub menu liyayaal la taaban karayo linkyaar la taaban karayo ku biiri bay tiri marka technically haddii la eego way noqonaysaa laakiin aniga ahaan waxaan ku yiri waxaa ka wanaagsan iyadoo oo aanad intaasoo link aanad u sameyn sababta aan ugu yirina waxa weeyaan waxaa jira horta shaqo marka as a designer markaad sameynaysid website-ku wuxuu kala baxaa laba shaqo labada shaqana waa labada shaqeen maanta kuu soo diyaariyey haddaad maqashid website designer iyo website developer maxay kala duwan yihiin qofku inuu designer noqdo iyo qofku inuu developer noqdo website marka lagu horeysiiyo waxaa dhici karta adigu inaad u qaadatid inay shaqo kaliya tahay laakiin waa laba shaqo oo kala duwan qof kaliya ta ma samayn karaya haddaad igu tirahdina waxaan ku oran lahaa horta videoga ahaan kaga sheekeeye bal halka dambe ayaad maqli doontaa inuu qof kaliya tiyo laba qof inay kala samaynayaan designerku iyo developerka waxa horeeya shaqada qofka designerkan wuxuu design garaynayaa website-kan shirkadu ay doonayso ee la sameyn doono designerka example waxaan kuugu soo qaadi adiga oo raba for example inaad aqal dhisatid aqal baad yaa doonaysaa inaad dhisatid kadib qof baad u yeedhi qofkaabaad ku odhan waxaan rabaa aqalkan aan dhisayo inuu laba qol 3 qol 4 qol daaradii maya hadduu mandarad leeyahay waxaa baad rabtaa inaad qofka ku tiraahdo mara qofkani arrinkaabu kaa qaadi uu kuu sawiray maruu kuu sawiro ayaa adiguna qaban waxaa ku odhan maya maqsinkaay halkaa ma rabo inuu ku yaale waxaan rabaa koonaha kale inuu ku yaalo albaabka laga soo galay halkaasaan rabaa soo saas soo ma website-ka marka la sameynayana website creation baa la ama création de site web oo ka dhigan website-ka waa la creaynaya marka waa sidii guri la creaynayo kale guri la abuurayo kale sidii guriga loo sameynaya unbaa website-kana waa sidii oo kale unbay u egtahay haddaba qofkan designerkii markan uu shaqaynayo shaqooyinkiisa ugu horeeya waxaa ka mid ah inuu qofka customerka ama qofkan raba website noo sameeyo inuu u tago uu ka soo ururiyo macluumaad iyo wixii loo baahnaa website-ka inuu colorkiisa iyo logogiisa iyo bottomka la dooranayo halay ku yaalaan waxaayoo dhan waa shaqada qofka designerka qofkan designerku hadhow tool wuxuu samayn doonaa markuu soo ururiyo inuu tools isticmaalo uu ku design garayo toolskaay waxay noqonayaa kaba soo qaad si aan videodii hore aan ku sharxay oo Adobe XD Photoshop qofku isticmaali karaya Figma qofku isticmaali karaya Sketch dhow software fara badan baa jira lagu isticmaalo haddaba qofkii markuu research-kii sameeyo soo wala eegay qof kasta markuu wuxuu doonayo uu haddana intuu qabtay XD design ku sameeyey design-kaabuu qaban oo customer-ku u geyn marka design-kani waa sawirka ayuu u geyn ku odhan customer-kii ka waran bal hadda sawirkii hadduu customer-kii ogolaado dee sidaasay shaqadii ku bilaami doonta haddii uu customer-kii sawirkii cajabi waayo ninkan designerka ayaa sawirkii bedeli markaasuu mar labaad ku celi maruu ku celiyo ayaa ilaa inta is ogolaanayaan qofka designerku dhameyn
shaqadii designerka marka laga baxay waxaa loo iman doonaa shaqadii developer. marka web designer iyo web developer keebaa horeeya? web designerka ayaa horeeya. qofkan developerka waxaa lagu odhanayaa sawir iyo loo dhiibi oo qofkii designerkii iyo customerkii ay kusoo heshiiyeen oo yidhaahdeen waxaan rabaa sawirka ustaasa inuu website-kii noqdo. kadib qofkii waxaa loo iman developerkiibaa haddaba contentigii loo dhiibay ayaa lagu odhan doonaa hay website geli. qofkan developerka haddaba markaa muxuu isticmaali? wuxuu isticmaali HTML oo ka dhigan macluumaadkii loo soo dhiibay ayay website-ka ama browserka idil eed isticmaalaysa Google Chrome, internet, Firefox ayay ka leedahay contentiga sidaa qofka ugu soo saar. waxaa kaloo isticmaali waxa la yidhaahdo CSS. CSS waxay ka tahay stylekii contentigii la soo saaray ayay akhtar, blue, maxay table-ku ha ahaado saasay CSS ka dhig. waxaa kale jirta haddana JavaScript waxa la haddana JavaScript waxa weeyaan website-kii marka la soo dhaadhiciyo inay halkan bidixdaa ka timaado, in midigtaa ka timaado, in hoostaa ka timaado, may marka la taabto drop down menu soo boodo, waxa interaction ka oo dhan ayaa JavaScript. haddaba qofkan developerku isagu wuxuu isticmaalayaa HTML, CSS iyo JavaScript. kii designerkuna waa anigii mar hore kuusoo sheegay isagu wuxuu isticmaalayaa waa Photoshop, XD iyo wixii la halmaado. haddaba markuu qofkan developerku intaa dhameeyo, qofkan designer markuu horta shaqada soo dhameeyo, shaqada inta ugu badan cidda samaynaysa waxa weeyaan waa qofkan developerka. intii marka uu dhameeyo HTML-kii, CSS-kii iyo JavaScript markuu intii oo dhan dhameeyo, haddana waxa ay kala jirtaa haddana database baasdooniyga haddana jira contentigan idil wixii meeshii lagu haynay. taana wuxuu isticmaali karayaa Python, waxaan jeedaa MySQL, SQL, waxaas waa qaybo ka mid ah database-ki. may qofkan kale developerka waa qofka website-kan domain-kii iyo website iyo hosting-kii shirkadaha hadhow toona marka shirkad laga iibso hosting domain-ka qofka ku riday weeyaan. qofkan kale developerkii waa website security-giisa qofka ilaalinaya ama la socdo. marka labadan qof shaqadoodu sidaasay kala duwan tahay. haddaba su-aashii marka ugu horreysay aan ku weydiin ka jawaabay imaka, ma laba qof bay noqonayaan mise qof kaliya ay noqonayaan? khibradayda anigu haddaan isticmaalo maanta cidda shaqada intaa leeg laba ka dhigaysaa waa shirkadaha aad iyo aad u waaweyn. laakiin shirkadaha dhexdhexaadka ama yar badanaa qof kaliya ta ayaa gacanta. imaka anigoo kale with my company qof kaliya ta anigan idin ku hadlaya, aniga u tagayo qofkii oo u sameynaya design-kii iyo development-kiga. taana waxay ku fiican tahay qof kaliya ta markuu design iyo development sameynaya waxay ku fiican tahay markan ugu horeysa design uma bandhigi karaysid development-iga wax had iyo jeer complicated noqonaya. waayo qofka designerka hadduu developer yahayna waxyaabooyin waxaa jira hadhow design-ka aad iyo aad u adkaanaysa. marka wixii oo dhan ayaad iska ilaalin. qofka customer-kana raaligelintiisa waxa ku wanaagsan inuu qof kaliya ta wixii sameynaya. waayo adigiibaa hor jooga customer-kii oo isla markaaba uga jawaabaya qaybtaa may noqon kartaa, sidaa ma la samayn karaa, sidaa kale ma loo tegi karaa. marka waa qof kaliya ta waxaa ka jawaabaya. mar hore saan kuu sheegay haddii qof designer loo qaato mishaarkiisu iyo developer way kala duwanaysaa kolba shirkadda ku xiran tahay. haddaba cilmigu ma joogsadee ilaa iyo intaad luxudka gelaysidee designerka laftiisa ayaa laba u kala baxa. yaan kuu sii badin laakiin aan ku yartaa taabto. designerka laftiisa ayaa UX design iyo UI design baa la dhahaa. user experience
iyo user interface. UX design waxay ka dhigan tahay maanta shirkado fara badan ayaa UX design daraadeed ayay ku dhacaan ama ay suuqa ka baxaan. waa alaab aad soo dejisay oo bottomkii la isticmaali kari waayo oo la arki waayo. qofkan UX design wuxuu ka fikirayaa oo ka yaataa waxaan productgan ama website-kan sideeba ugu wanaagsan oo qofku wala arki karaya, sideeba u wanaagsan oo website-kan macluumaad looga heli karaya. may application hadduu sameeyo application-kan sideeba macluumaad aad iyo aad ugu wanaagsan laga heli karaya. laakiin qofka UI designerku isagu waxaan lagu heshiiyey halka ay akhtar ha noqoto, halka ay casaan ha noqoto, halka ay black ha noqoto, qofku intaa ayuu samaynayaa iyo quruxdii iyo dhaqaaqii uu sameynaya. qofka kale developer-kana maanta waxaan ka hadlaa waa developer iyo designer sama. developer-kuna laba u kala kaca. hadal badan baad malaha soo wadaa baa leedahay maadi Soomaa ma ku dheereen maayo. qofka kale developer-kuna isaguna laba u kala baxayo front end developer iyo back end developer baa la dhahaa. front end developer isagu wuxuu isticmaalayaa waa HTML kan ku sheegay, CSS kan ku sheegay iyo JavaScript. waa intan design-kan ugu horeysa interaction kale weyn wuxuu sameeyay. back end design-kuna isaguna waa MySQL iyo SQL iyo Python whatever wuxuu rabo ayuu isticmaali karayaa. taas labadooda oo la isu geeyayna full stack developer baa la dhahaa. macluumaadka oo dhan maanta waxaan ugu talagalay inaan ku faahfaahiyo uma talagelin, laakiin inaad ogaato haddii aad arday tahay iyo haddii aad rajaynaysid mustaqbalka inaad ku shaqaysatid designer ama developer inaad ku shaqaystid. video ku badin maayo, intaasaan kusoo gabagabeynayaa. khayrna waan ku rajeynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.